waxaad sheegtaa afarta shay ee walaalaha kala dila oo ay ku kala tagaan. waxaa la yiri afar haween afar shay bay qaateen. wax ma inooga sheegi kartaa afarta haween iyo afarta shay ay kala qaateen? afarna waxaa la yiri weligaa xiriirkooda ha goonin. haddaba maxay kala yihiin? assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. waxaad sheegtaa afarta shay ee walaalaha kala dila oo ay ku kala tagaan. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أفرت الشيء ولا كلا دلوحة لو كلا شيء إني كليهين كو مالك أما هتدا لبض مالك سد حاسب لماذا أفرنا جيردا وما حي أفرت الشيء قف قيمي سهاسو دقا أفرت الشيء قف قيمي سهاسو دقا وحي كليهين قص الكبدن هذا الكبدن بنتا يو اسكو دركا haddaba waa maxay afarta shay ee naagta gurigeeda ka dumiya? afarta shay ee gabadha la qabo gurigeeda ka dumiya waxa lagu kala sheegaa inay kala yihiin xanaaqa ama carada badan, qaylada badan, shakiga badan iyo madax adeega. sidoo kale waa maxay afarta shay ee ninka ragga isna gurigiisa ka qariba? sidoo kale ninka ragga isna gurigiisa waxa ka qariba afartan shay: maqnaanshaha tirada badan, adeega zaa'idka ah, daneen la'aanta reerkiisa iyo bakhiilnimada. waxaa la yiri afar weliga ha xumaynin. haddaba yay kala yihiin afartaas? waa hooyada, aabbaha, walaalka iyo walaasha. ma inoo sheegi kartaa afarta ruux ee laga wanaagsan yahay in adeeg loo muujiyo? agoonka, faqiirka, maskiinka iyo qofka xanuunsan. afar shay waxaa habboon inuu qofka ku sifoobo. haddaba maxay kala yihiin? afarta shay ee qofka bini'aadanka inuu ku sifoobo ay wanaagsan tahay waxay kala yihiin: sabarka, qofku waa inuu sabar yeeshaa; cilmiga, sidoo kale qofku waa inuu cilmi yeeshaa; deeqsinimada, qofku waa inuu yahay qof wax bixin og oo deeqsi ah; iyo cafiska, qofku inuu yahay qofkii dulmiyo inuu iska cafin karo. afar ilaahay ayaa laga magan galaa. haddaba waa kuwii afartaas? afarta shay ee Allah subxaanahu wa ta'aala mar walba laga magan galo wixii ay kala yihiin: walwalka oo ah wixii shalay kugu dhacay in aadan ka walwalin; murugada oo ah waxa soo socda mustaqbalka in aadan ka murugoon; caajiska oo ah inaadan naqan qof aan waxba qabsan karin; iyo bakhiilnimada. afarna waxaa la sheegaa in laga agdhawaado. haddaba yay kala yihiin afartaas? waa run, afar in laga agdhawaado ayaa wanaagsan. waxayna kala yihiin qofka daacadda ah, qofka deeqsiga ah, qofka runta badan iyo qofka abaalka leh. sidoo kale afarna weligaa ha la saaxiibin. waa kuwee afartaas? afartaanna afartii hore ayay cagsi ku yihiin. waxayna kala yihiin qofka beenlowga ah, qofka tuugga ah, qofka xaasidka ah iyo qofka keligiis cunaha ah. afarna waxaa la yiri weligaa gacantaada ha u furnaato. haddaba yay kala yihiin afartaas? afarta ruux ay waajib tahay in ay mar walba gacantaada u furnaato waxay kala yihiin: marka koowaad waalidka, marka labaad walaalaha, marka saddexaad xaaskaaga iyo carruurtaada hal isku ah, iyo ugu dambeyn asxaabtaada. afarna waxaa wanaagsan in la yaraysto. wax inooga sheeg afartaas. qofka bini'aadanka afar inuu yaraysto isaga ayay aad ugu wanaagsan tahay. waxayna kala yihiin raashinka, hurdada, caajiska iyo meel fadhiga iyo hadalka badan. afarna waxaa la yiri weligaa xiriirkooda ha goonin. haddaba maxay kala yihiin? afarta shay ay waajib nagu tahay marnaba xiriirka aan la leenahay in uusan kala go'in waxay kala yihiin: salaada, qur'aanka kariimka, qaraabada iyo xuska alle oo la macno ah adkaarta. sidoo kale waa maxay afarta aan la eegin ama aan la fiirin? cawro qaawan lama eego, caad roobaanna lama eego, col soo socdana lama eego, calool buuranna lama eego. soomaalidu waxay tiraa afar baa leh. haddaba maxay kala yihiin? deeq ninkii baxsho baa leh, dalna ninkii yaqaan baa leh, duunyana ninkii dhaqda baa leh, diinna ninkii barta baa leh. wax nooga sheeg afarta aan afar kale ka dhargin. afarta aan afar kale ka dhargin waxay kala yihiin: indhaha daymo kama dhargaan ama aragga kama dhargaan; dhagahana dhawaq kama dhargaan; dhulkana roob kama dhargo; caalimkana cilmi kama dhargo. waxaa la yiri afar haween afar shay bay qaateen. wax ma inooga sheegi kartaa afarta haween iyo afarta shay ay kala qaateen? waa run, afar haweena afar shay bay qaateen. maryama bintu cimraan dhowrsanaan bay qaadatay. khadiija bintu khuwaylid radiyallaahu canha caqli badni bay qaadatay. aasiya bintu masaaxim oo ka mid ahayd xaasaskii fircoon lacnata ku dhacday laakiin ahayd qof mu'minaad ah weligeedna uusan korkeeda taaban, samir bay qaadatay. ummuna caaisha bintu abibakar iyadana waxay qaadatay radiyallaahu canha, cilmi badni bay qaadatay. soomaalidu waxay tiraa afar korka ayay dishaa. waa maxay afartaas? cuntada badan, hurdada badan, murugta badan,
iyo galmada badan. sidoo kale afar qiimahood afar ayaa ka sheekayn kara. haddaba wax nooga sheeg afartaas. xaatimul asam allah u raxmadee wuxuu yidhi afar qiimahooda afar keliya ayaa og, wuxuuna ku kala sheegay qiimaha nolosha waxaa yaqaano qofka dhintay ee geeriyooday oo keliya. qiimaha caafimaadkana waxaa yaqaano qofka xanuunsan ee isbitaallada ku jiro. qiimaha dhallinyaranimadana waxaa yaqaano dadka waayeelada ah oo keliya. qiimaha nabaddana waxaa yaqaano dadka colaadda ay haraysay. afar waqti waxaa fiican inaad afar kale iska xirtid. haddaba maxay kala yihiin afartaas? afkaaga xir markii aad carootid ama aad xanaaqdid. indhahaaga xir markii aad cabsi dareentid. qalbigaaga xiro markii ay murugo kula soo gudboonaato. albaabkaagana xiro markii lagu qiyaamo. yaa lagu kala sheegaa afarta ay tahay in aan ka xishoono? marka koowaad allah subxaanahu wa tacaala mar walba iyo meel walba ka xisho. marka labaadna malaa'igtiisa ka xisho sababtoo ah ayagaba way kaa xishoodaan. marka saddexaad dadka ka xisho oo dareenkooda ilaali. marka afraadna naftaada ka xisho oo qiimo isu yeel. waa kuwee afarta ruux ee weligaa ay tahay in aadan iska khasaarin kalsoonidooda? qofka ku caawiya adigoo dhibaataysan, iyo qofka kuu gargaaro garabkaaga istaago adigoo lagu dulminaayo, qofka kuu dulqaata adigoo caraysan ama xanaaqsan, iyo qofka difaaca sharafkaaga iyo cirdigaaga adigoo maqan. ugu dambayn afar qalad weligaa ha samaynin. ha noqon qof mar walba la heli karo, dadkana si fudud ha ku aaminin, qof walbana ha iska dabagelin, hana noqon qof falowda iyo laygta iyo loofta nala dhaafo. waa mahadsan tahay, khayr allah ku siiyo. adigana khayr allah ku siiyo, waa mahadsan tahay, waa inoo kulan dambe.